waxaa jira markaa qodob muhiim ah oo halkan ku jira oo la yiraahdo SQL statement. SQL statement waa 5 baa badanaa laga dhigaa laakiin mararka qaarkood 4 baa lagu sheegaa. qodobka koowaad waxa weeye waa query, waxa weeyaan waa DQL oo la yiraahdo data query language loo soo kaabiyay. waxaa loo isticmaalaa in xogta lagu soo daalacdo ama retrieve lagu sameeyo datada iyadoo laga from database iyadoo laga soo qaadanayo. waxaa sidoo kale jirta marka qodobka ugu muhiimsan qodobka koowaad waxa la isticmaalayaa wax la yiraahdo select. qodobka xiga waxa weeye waa data definition language oo loo soo gaabiyo DDL. marka badan ayada waxa loo isticmaalaa in lagu qeexo laguna maamulo database structure-kiisa. structure-ka guud ayaa laguna maamulaya laguna qeexaya. qodobka xiga waxa weeyaan waa DML oo badan data manipulation language loo adeegsado oo maxaa lagu sameynayaa waa modifying data in lagu modify kareeyo oo sidoo kale update oo kale insert delete xogti caadiga ahayd lagu wax laga bedelo. waxaa jira sidoo kale data control language wax la yiraahdo oo ah DCL. marka DCL ka badan waxa loo adeegsadaa managing access permission-ka in la sameeyo oo kale user-ki in permission la siiyo, permission-kana marna laga qaado. marka la siinayo waxa la yiraahdaa grant baa la adeegsanayaa. marka laga qaadanayo waxa la adeegsanayaa revoke. grant marka waxa la oranayaa gives permission to a user si awood uu wax ku access kareeyo ama wax ku daalacdo user-ka. revoke waxa weeye waa remove iska qaad permissions from a user-ka qaad. qodobka ugu dambeeya shanaad waxa la isticmaalaa oo statement-ka kamid waxa weeye waa TCL. TCL-ka marka waxa la yiraahdaa waa transaction control language. badanaa waxay manage kareysaa ama loo isticmaalaa inay manage kareyso transactions-ka dhacaya. waxaa kamid ah commit baa kamid oo inay save kareyso change walba si permanently ah. rollback baa kamid oo inuu dib u soo celiyo waxa la yiraahdo changes-kii la bedel la sameeyay. save point baa kamid iyadana in la sameeyo create a save point in transactions-ka.